السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدباني سلام يا صاحب يال صباح وناكسن حالي قارة يوروب وحا لقدا فري ترتنك حيساها بدن يويفا جامس ليغا ترتنك جامس ليغا طبعا وترتنك أو قيمها بدن لما ترتمضى عياران كوحاها كبدا عكت عالمك قارة يوروبنا يكو كتهي جامس ليغا وحا هايستا كوحدة إنجريسكا مانشستر سيتي لو يقانو oo sanadii ama xilciyaareedkii dhammaaday bartamaha sanadkan hal iyo eber Istanbul kaga qaaday kooxda reer Talyaaniga ee Internazionale Milano. marka saaxiibayaal xalay ciyaaro xiiso badan ayaa halkaas ka dhacay. kulamada ugu xiisaha badan ayaan dul istaagi doonaa iyo kulanka xiisaha iyo xamaasadda leh caawa Manchester United ay u ambabaxday ama ay ku sugan tahay wadankan Jarmalka gaar ahaan magaalada München ama Munich. Bayern Munchen ayaana soo dhaweyn doonta kooxda Ingiriiska lagu magacaabo Manchester United. haddaba ciyaartaas iyo ciyaaraha kaleba intaan u gudagelin xalay ciyaarihii xalay dhacay rikooro fara badan ayaa laga diiwaangeliyey. rikooradaas ayaan doonayaa inaan idiin dulmaro. Kylian Mbappe 62 kulan uu saftay tartanka xiisaha badan ee Champions League xalay wuxuu dhaliyay goolkiisii 41aad ee tartankan. weli Mbappe waa 24 sano jir. 24 sano ayuu ku dhalinayaa intaan bal markuu gaaro 34 sano 10 sano kadib bal ka waran Mbappe mise ayuu dhalin karaa. tababaraha Paris ninka lagu magacaabo Luis Enrique halyeega Barcelona horena Champions League uu qaaday kooxdaas isagoo macallin ah oo haddana la leeyahay kooxda Paris waxa uu sheegay in Mbappe xilligan uu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee kubadda cagta caalamka hadda ciyaaraya. Vinicius Junior, Mohamed Salah, Haaland, De Bruyne, Rodrigo waxaasoo dhan isku daro dhah Mbappe cid gaarta ma leh. xaqiiqda marka laga hadlayo Mbappe buuqii yaraa uu galay Paris oo doonaysa inaysan Real Madrid ka iibinin isagoo doonaya inuu baxo ciyaaryahankaas marka arrimahaas laga tago xaqiiqatan Mbappe oo ciyaaryahanka hadda ugu wanaagsan caalamka kubadda cagta aw Haaland waa naqaanaabo ura Alvarez aw ikan chuuf wash waa ku dhalna De Bruyne maxaa maanta wax ma iibaasin oo iska dhaca ikan waa ku dhalna laakiin dhamaystirkiisa waa 100%. laakiin Haaland inuu garab soo karo soo gambiyo laba nin soo diido kubad u baaso xalaa waxa arkay ciyaartii City 3 ay kaga adkaateen adiga Champions League kulankii furitaanka ay ciyaarayeen kubad buu caawiyay ninkii Haaland ahaa bidix iyadoo kala socoto lagu caawiyano ciyaartooyda City dhan waxay leeyihiin mataqaana ay adaa caawi yani wax uu sameyn karo haba yaraatee ma leh laakiin waa dhaliye balaayo wuxuu ku qabaa shabaqaas wuxuu soo bartay ninkaas sida wax loo dhalin karo. kubadda cagta waxa soo mareen ciyaartooy waaweyn oo kubaddooda lagu raaxaysan karo sagaalo dhammaystiran de waxaa ka mid ah Luis Nazario, De Lima, Ronaldo goolahayaha isiga hadduu arkobo garbaaleysan dhihi jira dhac waa dhalnaa. waxaa kaloo ka mid ahaa Hernan Crespo laacibkii hore Parma, Lazio, AC Milan legend buu ahaa ninkaas. Gabriel Omar Batistuta Argentina, Fiorentina raggaas baa adduunka soo mareen. raggii hadda ugu dambeysay Benzema, Lewandowski ninkii odaga ahaa Luis Suarez yani Haaland intaas ma gaaro laakiin kubadda wuu ku dhalinaa dardar uu ku socdaa kooxna wuu iska helay saaxib. Anwar Sid Cali Shakunda halyeega Soomaaliya naadiga dekadaha haddii maanta City loo geeyo intuu doono dhalin karaa. yani xalay kubadda ugu dambeysay uu dhalinayo haddaad daawatay Rodri waa la isla wareegsanaa foodana qabanayo kooxda kale waa lagu jeesanaa bas inta waxa u baxayo Rodri goosha kooxda loo soo aadaa Daku goosha la aadaa yani koox iidan waxa waaye kubadda isla ciyaaraysa lambar shingu waxa iyo lambar 4 5 si taraxda taagan yihiin marka Haaland meequu dhalin karaa intaas. Barcelona xalay Joao Felix ayaa u cudurada dhigay Chelsea waa inkaarantay. Joao Felix wuxuu taagnaa waa idin barya ama xataa iyaga qaata Atletico Madrid mar raba inaan ku laabto isaga Diego Simeone oo isku dhaceen mudan dooneen ciyaaryahankaas inuu ku laabto kooxdaas
jalsi waxay dhaheen kan 120 ka bixi karnay gooyde markaas waxay ii gateen jakwunka iyo madukunka iyo maduuka iyo bal meel haybin geeyaan jalsi waa inkaaranta waa la taagay jalsi waa la taagay liverpool ana taagtay bemidi sheegay liverpool attacked ciyaaraanka liverpool doonata waa iska doonanaysiin warabta ciyaaraanka min anfaca waana isweydiisaade barcelona hadda gacanteeda waxa waay 5 la dhiiboosa waxba laga ma qaban karo wali bedriya sii maqan hadda hadalkan ku dhahay meel ku sii qoro barcelona waa kooxda city maanta ka hor istaagin kartay champions league wariya gundogan la keenay cancelo la keenay felix la keenay waxaas lacag kuma fadhiyaan aqal leewa john laporte calal weyne ninkaas aqal ma taqaana laba la soo kooxda ugu soo keenay waa dhisay taageerayaasha barcelona kaliya waxay ku naceen wixii uu ku sameeyay Lionel Messi ciyaarihii xalay Barca shantaas ay ku badisay City waa adkaatay saaxiibayaal Talyaaniga AC Milan waxay mari weysay iyadoo San Siro joogta Newcastle isla groupkaas Dortmund 2-0 ayaa lagu garaacay Paris Saint-Germain si fiican ay u dheeleen Borussia Dortmund sidoo kale naadiga kubadda cagta Leipzig Xavi Simons nin yiraahdo juniorska ama akademiyada Lamisa ka soo baxay basas uu wacdareynaya 6 ciyaar ee ugu dambeysay Leipzig 3 gool iyo ka badan ay dhalisaa kulanka soo aadanna waa naadiga kubadda cagta Leipzig iyo Manchester City Jarmalka ayuu ka dhici doona ciyaartaas caawa ciyaaraha dhici doona Jarmalka ciyaar adag baa jirta Bayern Munchen hadaa u jabto iyo xulka Jarmalka waa lagu guwada wargeysyada Jarmalka maanta ka soo baxay intooda badan waxay leeyihiin Manchester United imsa laga dhalin doona maadaama dhaawacyo buuq ciyaartooydooda xataa waa islaayeen ilka dheer Bruno Fernandes baa qolka gaagaay ka kabtan baa loo dhiibo sankaas uu ka hadla ciyaartooyda kale kaama yeelayaan macallin kibir badan baa sii joogo wax lee ganaaxay 9 war idinkaaba u baahan inaa kor isku soo qaadaan oo nin la caynayaahe buuqan awdiin waxa waaye koo gaabko Martinez sanku isna ka hadla Manchester balaya haysata Roy Keane iyo ya rag baa meesha soo maray haddana xaaladda ku xun Sir Alex Ferguson ayana taaga kuwaas sirka soo u baxay Premier League Champions League waa taabilaayeen ciyaaraha saas ayaa ugu xiisaha badnaa dhacdadii ugu weyneed ee xalay Champions League ka dhacana waxay ahayd ninka lagu magacaabo Diego Simeone xalay waa la soo dhaweeyay kala arag Lazio waa u kala kicisay Lazio si wanaagsan ninkaas u soo dhaweeyeen 1999 ilaa 2003 ayuu kamid ahaa wuxuu Diego Simeone Lazio u saftay ku dhawaad 100 kulan 99 kulan inuu saftaan jeclahay Atletico Madrid ayuu ku biiray hadda Atletico Madrid ayuu macallin u yahay Lazio uu jeclaan lahaa inuu macallin u noqdo laakiin lacagta Atletico Madrid bixinayso Lazio ma bixin karto wuxuu ka mushaar badan yahay ninkan Guardiola iyo Pep iyo Jurgen Klopp macallimiinta Yurub oo dhan isaga uu mushaar badan yani Atletico Madrid isaga aaminsan yihiin waa tahay saaxiibayaal ciyaaraha intaas ayaa ugu xiisaha badnaa caawa ayaanu arki doonaa sadaashada Manchester United iyo Bayern Munchen imisay ku dhamaan doontaa ma halay ku dhamaanaysa ma saddex halay ku dhamaanaysa oo Bayern ayaa ku adkaanaysa ma Bayern nimankan xasuu u geysan doonto Bayern hadaa u jabto ku guwade 6-7 laga dhalina laakiin Manchester waa koox weyn oo soo laaban karaan Harry Kane oo shirka jaraa'id wuxuu sheegay in kooxda markay sidan u dhibaataysan tahay oo kaleeta ay ka adag tahay mararka kale waayo waxay doonayaan inay soo laabtaan war saaxiib yal wada salaamaya waa saaxiibkeen Cabdishaad Qanciye ciyaaraha saakay intaas ayaa ugu waaweynaa waa inoo caawiyo wixii ciyaaraha soo kordha aad baa idin salaamaya